Hogaamiyihii Tataarka ee Mongooliga ee ahaa Genghis Khan ayaa markuu weeraray magaalada Bukhara wuxuu awoodi waayay inuu furto magaalada oo uu gudaha u galo sababtoo ah magaalada waxaa ku wareegsanaa derbi iyo dhufaysyo adag. Markaas ayuu waraaq u qoray dadkii deganaa magaalada isagoo leh qofkiina garab istaagaa naftiisa iyo maalkiisa waa u nabadgelin doonaa. Dadkii magaalada deganaa ayaa u kala jabay laba qaybood. qayb waxay diideen codsigii Genghis Khan, qaybna waa ay ogolaatay. balse qaybtii ogolaatay ayuu fariin kale u diray isagoo leh haddaad nagu kaalmaysaan dagaalka kuwa diidan inay isdhiibaan markaan guulaysano magaalada idinka ayaa madax ka noqon doona. waxaana hubka qaatay oo safka ciidamada Mongoolka ama Tataarka ku biiray dabadhilifyo iyo kuwa caadaqatayaal ah. kadib waxaa bilowday dagaal u dhexeeyay dadkii walaalaha ahaa ee magaalada deganaa, waxaana guulaystay kuwii ogolaaday codsigii Genghis Khan. Genghis Khan ayaa guulaystay asagoo aan gelin wax dagaal ah. kadib Genghis Khan ayaa hubka ka aruuriyay kuwii guulaystay oo ahaa kuwa dabadhilifyo ah, caadaqatayaal ah, walaalahood qiyaamay, wuxuuna iskugu keenay meel fagaar ah, kadibna qoorta ayuu ka wada jaray. markaas ayuu dhahay hadalkii taariikhda galay ee ahaa haddii ay wanaag leeyihiin walaalahood ma qiyaameen.